madaxweyne shirkii sagaalaad ee aad ka qayb gashay ee ay isugu tageen madaxweynayaasha Afrikada Bari iyo Afrikada Dhexe ee magaalada Brazzaville lagu sameeyay waxa uu waqti badan ku qaatay inuu heshiisiyo dhaqdhaqaaqyada walaalaha ah ee gobonamadoonka ee dalka Angola waxaana jirtay in guddi gaar ah xaalka loo saaray jaalle madaxweyne arrinkan uga waran marka ugu horeysa waxaan salaan kaliya laaba u jeedinayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaantiisa anoo aaminsan inay iyagu hadal kastaba hadalka ugu horeeya xaq u leeyihiin inaan iraahdo mar labaadkana waxaan u jeedinayaa mid salaan kaliya laab ah oo aad iyo aad iigu sii qaaya weyn dadka Soomaaliyeed ku jira halganka baridda iyo barashada dadka reer miyiga u gargaarahaya ee u badan dhalinyarada iskoolaadka u badan macallimiinta iyo ragga ka shaqeeyo nooc kastaba noqdeen anigoo ugu hambalyeynaya hawsha wanaagsan oo aan maqashiisnahay inay si fiican u wadaanin haddaan u soo laabto su'aalahaagii waxaan isleeyahay shirkii lagu qabtay Brazzaville guud ahaantiisa waa uu hagaagay maxaa waay marka ugu horeysa 11 madaxweyne isugu timid iyo mid walba cadad wasiiro ah oo la jireen waana aad garan karaysaa in amuuro badan oo dusha ku laalaa lagu dhammaystiri karo meelahaas markii la iskugu yimaado marka xigana waxyaalihii la iskugu yimid oo danaha Afrikada Bari iyo tan dhexe ahayd wax badan baa ka qabsamay haddii hoos loo eego gaar ahaan wixii khuseeyey dadka oo Portugeesku wali gumaysanayo oo dalkaas jaarka la iyadoo oo arrimo badan oo sidii iyaga wax loogu tari lahaa ama loo gargaari lahaa laga tashaday iyagana waxyaalo ku dhex jiray badidoodu meel fiican laga gaaray markii ka dambaysayna haddii shirkii uu dhammaaday waxay ahayd lagama maarmaan inaanan iloobin laba hawlood oo labaduba waajib ay igu ahaayeen iyada oo taladaas ay ila wadaageen jaallayaalkii aanu safarka wada ahayn iyo guddiga labadaba in aanu waddamadaas kaa aan joognay iyo kuwii kaleba aanu wixii aan isleenahay danbay ummadda Soomaaliyeed u yihiinna aanu isku taxalluujinno bal inaan wixii ka qabsami kara ama wada qabsami kara aan ka qabanno Afrikada danteeda caamka ahna oo maanta aan xilkeedii insaanan yahay inaan hogaaminana in iyadana wixii ka qabsami kara oo dan u noqon kara inaanu ka qabanno waxaanu ka bilownay Congo ama Brazzaville magaalada haddii la yiraahdo waxaan ku xijirnay Zaire waxaan ku xijinay Gabon waxaan ku xijinay Rwanda waxaan ku xijinay Uganda waxaan ku xijinay Burundi waxaan ku xijinay Tanzania waxaan ugu dambaysiinayna Kenya inta madaxweynayaal oo amaan la kulmaynay ama dad ah ama mas'uuliina wixii aan u bandhigaynay waxay ahaayeen wixii labadanada wadankii kastaba ka hagaagi kara ama xiriirkooda wanaajin kara ama isgarabsiga maanta lagama maarmaanka adduunka heerka la marayo oo ka qabsami kara ama aanu uga warrami karno oo ummadda Soomaaliyeed halgan ku jirto iyo meesha ay marayso intaanu ka ogeysiin karno aanu ka fidin karno iyo wixii labada dal ay wada qabsan karayaan iyo wixii Afrika danaheeda ah in la isweydaarsado araa madaxweynayaalkaas iyo wasiiradooda ama dawladooda iyo guddiganagii raggii ka mid ahaa si markaa meel loo wada dhigo waxyaalaha hadda kadib in la qabto ay tahay lagama maarmaan ama horay go'aan madaxweynayaalku shirarkoodii ha ku gaaraano ama ha ahaadeen ra'yiyaal cusub oo annaguba aan wadanay ama nalagu beeriyey haddii aan xaqiiqo ahaan dib ugu noqdo markii hawshaasu 8 beled ahaa soo duubantay waxaan isleeyahay safarkan wuxuu ahaa mid guul badan ku reeriyeysan buu amaan oran karaya meel walba aanu tagnay waxay nalagu soo dhaweeyay si xiisa gaara leh aan filayo inaad adinka naftiinu idaacooyinka adduunkana kala socoteen haatanna wixii faahfaahina qoladii jaraa'idkuna la socotay ay iyagu ka warrami doonaan jaalle madaxweyne waxaa jira shirkan madaxda Afrikada Bari iyo Afrikada Dhexe aad ka qayb gashay inuu ahaa kii sagaalaad ee madaxdaas ay isugu tagaan haddaba
shirkani waxa uu ahamiyad gaara saaray aadna loo jeexjeexay waddamadaasi Afrika in ay si weyn isaga kaashadaan oo ay xoojiyaan wax wada qabsiga ka dhaxeeya xagga dhaqaalaha ganacsiga iyo xagga gaadiidka haddaba shirarkii hore oo amuuraha lagu soo qaaday adigoo ah guddoomiyihii ururka midowga Afrika maxay kula tahay inay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee hortaagan sidii loo hirgelin lahaa ee ay u dhaqangeli lahaayeen xaqiiq ahaan haddii la yidhaahdo ha laga hadlo dhibaatooyinka hortaagan in ay dhaqan galaan wax wada qabsiga dadka Afrika way badan yihiin meelo badan lugaha way la galayaan laakiin haddaan kuwa ugu waaweyn aan isleeyahay ugu waaweyn haddaan taabto waxaan oran karahayaa marka u horeysa kulan siyaasiya ama madaxeed Afrika waa ka dhaxdhacay 10 sanadoodna waa socday laakiin midowga Afrika waxaan isweydiiyaa mar badan ma suuro geli karaa haddii aan waxyaalihii gundhiga u noqon karay suuragalka midowga Afrika ayba meesha ka maqan yihiin waxaa ka mid noqon kara matalan xiriir ma jirto diyaaradeedu Afrika ka dhaxaysa oo isu marta Afrika gudaheeda mid wadooyin ma jiraan isku xira Afrika maraakiib Afrika isku xira ma jiraan idaaco Afrika danaheeda ama wararkeeda runta ah isu tabisaa ma jirto mid ajnabi ah lagu xiran yahay ma jiraanin xataa wargeyska haddii la eego walow la yiraahdo waxba la isku xiraa ilaa muddo dheerna laga hadlaayay haddana iyaga naftoodu ma jiraanin maxaa waay meelo badan oo aanu damacnay inaanu la yeelano xiriir dalkanaga waxay khasabtay in wadamo isticmaaradii horeeta ka mid ah la mariyo kuwaasuna ay yiraahdaan maanta waa la nasanayaa iyo bal hadda dib baan ka eegi doonaa xaajooyin muhiim ah inay ku dhacaanin ayaa dhacday inahaasoo dhin iyo ina badan markii ay la eego in rumayntii midowga Afrika in dulal ku jiro haddaba aan dib u laabto iraahdo aan su'aashaadi dib ugu laabto maxaa hortaagan waxa hortaagan isticmaar ba hortaagan maxaa kale hortaagan yaa kale hortaagan isticmaar ba hortaagan isaga muxuu ahaa la taliye isaga nooca meelo badan isaga nooca farsamo yaqaan isaga nooca isaga muxuu ahaa noo maamulo waxyaalo badan inta kuwaasu ay Afrika ku hoos jiraan khayr Afrika ay gaaraysaa ma jirto ilaa qolo walba sidaan waligayba hore u oran jiray dadkooda wax yaqaanka ah iyo dadkooda dhalinyarada ay waajibaadka dalka iyaga xilkooda u gudbiyaan oo iyaga ay maamulaan oo maskax caafimaad qabto oo Afrikaan ah oo iyadu samaysan karta himiladeeda iyo dhabihii loo mari lahaa dhisan karta ilaa la gaarana la heli maayo Afrika inay isu tagto anoo ka xun in hadalkaas iraado waxaan hadalkaa u leeyahay waxa weeye waxa ii muuqata in Afrika guud ahaan tahay iskala jirto niyo ahaantana ka fiicnaato laakiin haddii luguhu ay maqan yihiin qofku ma socon karo lugihii isku xiri lahaa Afrika oo run ahaan isugu xiri lahaa oo dhaqaale ahaan isugu xiri lahaa oo siyaasad ahaan isugu xiri lahaa oo tacliin hidiyo dhaqan isugu xiri lahaa oo qiimo ahaantooda ummad ahaan Afrikaan ahaan soo saari lahaa way maqan yihiin waana saan u sheegay isticmaalkii cusba ayaa saa lugta ugu rafaayay jaalle madaxweyne waxa ka mid ahaa wadamadii aad soo martay dalka Kenya waxaanaanu ka warhaynaa in aad halkaa isku aragteen oo aad ku wada hadasheen madaxweynihii dalka Kenya Jomo Kenyatta ma noo sheegi kartaa arrimihii ay isla soo qaadeen dalka Kenya wuxuu ka mid ahaa dalalkii aan u warramaynay sidii annaga noogu muuqato danaha Afrika uga warramaynay waraysanayna wixii ra'yigooda uu ahaa run ahaan haddaan xoogaa sii leexdo waxaan oran karayaa in awalan si fiican naloo soo dhaweeyay oo isla markiina 2 goor ayaan la kulmay madaxweynaha Kenya labadii goorna waxaanu ka hadalay arrimo badan oo ama labadeena dal khuseeya ama Afrika guud ahaanteeda khuseeya hadalladii aanu ka hadallayna dhammaantood waxay ahaayeen kuwo wax ku ool ah waxaanu ka gaarnay su'aashayda ugu dambaysa jaalle madaxweyne waxa ay tahay ma nooga warrami kartaa ama wax ma ka oran kartaa isbeddelka xagga maamulka ee ka dhacay dalka Ethiopia iyo arrimaha ka soconaya wixii ay nala tahay horay baanu uga niri annagu dalka Ethiopia waxa ka socda wuxuuna ahaa mabda ahaan waxaan aaminsanahay ummad walba dalkeeda inay iyadu maamusho taleedana iyadu inay leedahay faragelin banaankoona qaldaan inay tahay baanu moodaynaa markaas markii khalaanqalku usbilowday ayaan hore u sheegnay oo niri danaha dadka Ethiopia iyagu ha maamusheen annagu ma aaminsanin in la farageliyo
haatanna waxaan filayaa inay iyagu ku filan yihiin sidii si ugu habboon inay dalkooda iyo dantoodaba u maamulaanin. madaxweynaha golaha sare ee kacaanku markii uu dhameeyey su'aalaadkii aanu ku warsanay dhabaha dawladaha ee magaalada muqdisho waxa uu dabeedna salaan iyo hambalyo ballaaran u jeediyey ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogtay ee gaar ahaan ardada iyo barayaasha ololaha horumarinta reermiyiga ka wada dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya dhamaantiiba. waxaan isleenahay walow muddo aan waddan ka maqnayn hawsha waddanka qaybta aan ka qaadan jirnay ee aan kala maqnayn waxaan isleenahay cidla kuma dhicin baanu isleenahay ee wax u dhikami kara ayaad soo qabateen ummadeen haddaan ku soo hoobiyo waxaan ku dambaysiinayaa mar labaad inaan cusboonaysiisto hambalyadayda iyo salaantayda farxadda leh ummadda Soomaaliyeed anoo u rajaynaya mar walbaba kuwii barwaaqo iyo balaaro la kulmay inay noqdaan. mahadsanid waxaanu kugu hambalyaynaynaa soo noqosho wanaagsan adiga iyo wafdigaagaba aad ku soo nabad noqotay dalkaagii waa mahadsantii.